munaasabadan oo loo kala harin meeqaamkeeduna ayaa lagu boqoriyay ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur oo ka mid noqon doona isimada Soomaaliyeed gaar ahaan isimada Sool Sana iyo Cayn taasoo ka dhacday deegaanka Buuro Wadal ee gobolka Sool waxaana munaasabada caanashubka ugaaska ka soo qayb galay mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ka kala yimid golaha dhaqanka Jubbaland golaha dhaqanka Puntland oo horkacaya boqor Burhaan boqor Muuse iyo golaha dhaqanka mandiqada isugu ka soo jeeda ee Sool Sana iyo Cayn wasiiro iyo xildhibaan ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo horkacaya wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliya waxaana wafdiga kamid ahaa madaxweynihii hore Puntland Dr. Farole oo iminka ah senator ka tirsan aqalka baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiirkii hore duulista iyo hawada Soomaaliya xildhibaan ka tirsan aqalka hoose Axmed Cali Jaamac Jangeli wasiiro iyo xildhibaan ka tirsan maamulka Puntland oo iyagana horkacayo madaxweyne ku xigay maamulkaasi Cabdixakiin Xaaji Cumar Cami waxaana munaasabadaasi ahayd mid ay ku kulmeen siyaasiyiin fara badan oo qaarkood xambaarsanayeen afkaar aad u kala duwan balse waxa kaliya kulmiyay ujeedkooduna ayaa ahayd munaasabadan maamuuska huwan ee lagu calaamad saaray ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur ugu dambeyntii garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale ayaa erayo kooban oo duco iyo dardaaran iskugu jira faray ugaaska marka laga hadlayo mas'uuliyadda qof walba xilkiisu wuxuu yahay inta uu hayaa xilkiisu yahay haddii aad hortaada eegto ishaad waxay gaaraysaa meel kooban haddii aad kor u baxdo oo diyaaradda fuusho ood kor usii baxdo waxaad arkaysaa boqolaal kilomitir baa kuu muuqanaya saa darteed waxaa leeyahay mas'uuliyaddu macnahaasay leedahay kullamaa qofku xil weyn sii qaadaba waxa weeyaan xilkiisu waa kordhaya ugaaska xil weyn baa la saaray waxaan kula dardaarmaynaa oo nasaaxada koowaad ay tahay allah baa wax hagaajiya ilaahay baa wax fudaydiya xiriirka adiga rabbiga xooji baynu kula dardaarmaynaa على حفظ شرف المرن وأعطيه ولا برا أنا أني بيوش دولنا وأن يلاقي هو يقرأ كتير صلاة وشرب وأنا بيوش دولنا أجلس دولنا وأنا فتح وحضاني برا فتح وراك فأخذ وراك شربنا كانت كتير مشدولنا أجل مشدولنا وربنا مشدولنا كانت بركانا برا مشدولنا هذا باب المعصفين شكرا خيرا وأتينا المنى أحسن نواك قدوني أيهو يسمدوا بدنيهين حظنا الدوران أنا عن هاتا المضعو يخصي هلا يخ أيهونا يهل الدوراني يسمها وعيدين كقدوني وحي كالنتا أنه عنه كلنا يسمها والله قوانينا واسكينا إرمان تهدفوا على مسارينه وقالوا أنه أبينا صاحب هاي سجنا صاحب قارن هاي الوغاس محمود وغاس عبد الله عيسى النور سرادين سكرة كريمي جبلان بوتلان يلمان جيجا Soomaaliya laga hadlo siyaasiyiinta halkan fadhida oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo madaxweynihii hore ee dawladda ama maamulka Puntland dawladda federaalka أولاً إلهي بقى مهدى سبحانه وتعالى نعموين كثيرا بدنا أمنا السيئي كان لكوبي كريم كان لطرين كريم بينهم مهد علينا انت كنت وحانو مهد علينا تذكر شرفتهم بدن قوغشن حفلة أنا ودقني وغاس محمود وغاس عبد الله عيسى نقلس وغيب قلي لوغو يمد وحان لنا واد ما سنتهين آليات بعد ما سنتهين وآلي صور دردارنكي هلكن وشيخ عبد الناصر كفري وحديثك صلى الله عليه ورسولك الأول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مسؤولية أمانتين ونسبنا لكن المسؤولية إلهي وبردي مدشن أتكهد دوتنا إن شاء الله إن أتصدي صحابي جليل كها أبو بكر الصديق ويري بدن aad uga soo qayb gasheen calay masaarkayga aad iyo aad baan idin ka mahad celinaya waxaan ku raali lahaa culimada iyo saxaafadda iyo hooyooyinka dhammaantiin waan wada salaamayaa
ilaahay waxaan ka baryayaa culimadii iyo odayaashii ee aabbahay wada shaqayn jireen oo isimo iyo cuqaal iyo siyaasiyiin ba ahaayeen waanadii iyo ducadii iyo dardaarankii ay siiyeen mid ku dhaqma in ilaahay iga dhigo waan ilaahay ka baryayaa aad baanan u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aada noo soo sharafteen waxaan kaloo aan u mahad celinayaa guddidii qabanqaabada iyo beeshayda oo igu qadarisay iguna xushmaysay booskii aabbahay inaan u bedelo aad bay ayaguna u mahadsan yihiin iyo sida wanaagsan ay usoo aad baan idinka mahad celinayaa runtii waxa weeyaan waktiguna waxa weeyaan aad buu u dheeraaday waana soo yaro daahnay aad baad raalli uga ahaanaysaan isimadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii kale ee microfonku wada gaari waayey waxaan ka raalli gelinayaa waktiga oo yar bay ku dhacday ee si kale layma ilaawin aad baan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ee aada noo qadariseen oo weliba meelo fogfog aada nooga timaadeen dal iyo dibadba aad baad u mahadsantihiin dadka xanuunsan ee ducada dalbanayana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay caafimaad ugu bedelo xanuunka haya ilaahay waxaan ka baryayaa raxmaad khayr qaba inuu ina siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inaan soomaalida maanta meeshan iskugu timi ee quruxda badan inay soomaaliya haddii shalayta meeshan minka hor waxay ahayd 2 isbuuc ka hor waxay ahayd meel cidlaaba maantana waa magaalo weyn intaasoo soomaaliya la iskugu nimid waxaan u malaynayaa haddii soomaali ay gacmaha iswada qabsan lahayd inay qof soomaaliyeed bulgisi u yahay beesha inoo soo doortayna waa u hambalyaynayaa kulli hambalyaan leh dhammaan waa Farxaan Maxamed Caydiid Ariel TV Laascanood